maanta waxaan idiin hayaa muuqaal cajiib ah. Ha ilaawin inaad muuqaalkan like saarto, asxaabtaana la share garayso. mahadsanid, daawasho wanaagsan. Assalaamu calaykum aqaarta soo dhawaada. waxaan idiin hayaa maanta website aad ka heli karto slides diyaarsan oo aad iyo aad u qurux badan oo bilaash ah. website-ka qayb wuxuu leeyahay lacag, laakiin waxaad ka heli kartaa slides aad iyo aad u wanaagsan oo lacag la'aan ah. website-ka waxaa la yiraahdaa Slides Go. markaad soo gasho linkigiisa waa kan xaggan sare idinku calaamadiyay, xagga sarena waa idin soo dhigi doonaa description-ka. markaad soo gasho website-ka sidaan buu noqonayaa. marka laba option buu haysataa, inaad eegto trending searches-ka, waxyaabaha aadka loo baarayay liiskooda inuu ku siiyo, iyo inaad aragto kuwii u dambeeyay iyo kuwii ugu wanaagsan ee popular-ka ah. sidoo kale waxaan doonayaa inaan sheego teamka haddii aan dhahay slideska haddii uu free yahay, waxaa ku garan kartaa calaamadda premium ta xagga sare kaga taala ma lahan. so hadduu calaamadda leeyahay that means slideska lacag wey, kadib iska daa. so sidaa ujeedaan iminkan aad iyo aad kuwa free ah ka buuxo, sababtoo ah kan waa free, kan waa free, kan waa free, kan iyo kan baa lacag, afartaa free way. so inta free ah ka badan inta lacagta ah. haddii iminkan tijaabo yar sameyno, tusaale ahaan waxaa lagu soo diray slides ku saabsan maybe marketing oo kale, kadib kuwa marketingka dooro, kadib waxaa kusoo baxay slides ku saabsan marketingka, inaad kasii doorato nooca aad doonaysid ama kan ku qanciya. so marka waxaad samayn kartaa inaad eegto intaadan download garaysanin, kadibna aad download garaysato. so hadda halkan xataa wuxuu kuu sameeyay inuu kuusii kala qeybiyey slideska ku saabsan marketingka. wuxuu kaaga dhigay social media qaar ku saabsan brand guidelines, qaar ku saabsan agency, qaar ku saabsan newsletters. so haddii hadda aan furno kan brand guidelines oo kale, wuxuu noo soo saarayaa qaar kale oo kusii dhex jira marketingka kana sii ah brand guidelines. okay, haddii hadda aan baarno kale qaar technology oo kale ah, wuxuuna siinayaa slides ku saabsan technology. so for example waxaa lagu soo diray inaad warbixin ka keento barnaamij ku saabsan IT-ga oo lagu yiri kasoo diyaariyo presentation. website-ka Slides Go imaw, kadibna ku raadi waxaad doonaysid. hadda for example kan oo kale IT security pitch, waxaad doonaysaa inaad security presentation ku saabsan inaad soo bandhigto, balse uu qurux badan yahay asagoo dhan ku diyaarsan yahay. marka haddaad doonaysid inaad aragto slideska sidee u egyihiin, click see, kadibna falaarta ka wad next. wuxuu ku siinayaa slideska sidee u ekaanayaan, inaad ku qeexdo table of contents saa u ekaanaya, kadib siduu u ekaanaya. so any slide wuu ka duwan yahay ka kale. slide walbana aad doorato, hadda kanaan doorto IT, qaabka u qoran yahay IT buu ku saabsan yahay. haddii aad doorato mid medical waxaa laga yaabaa inuu design ahaan ka duwanaado. so waa website aad ka heli karto presentations aad iyo aad u qurux badan, waxayna ka caawin kartaa in hadhow presentationkaaga uu noqdo wax soo jiidasho leh oo dadka usoo bandhigaysa aad iyo aad ugu qanacaan. okay, marka sideen u isticmaali karaa way su-aasha meesha taal. waxaad u isticmaali kartaa hadda slide-kan oo kale ka helay, waxaan doonayaa inaan isticmaalo kan. okay, waxaan sameynayaa laba option baa haystaa, inaan powerpoint ahaan ku isticmaalo. haddii aan powerpoint dhaho, wuu iisoo download garanaya slide-ka asagoo ppt ah, kadibna waxaan ku furi karaa powerpoint-iga ku install garaysan. laakiin tan kale kasii wanaagsan aan aadka ugu helo waxaa weeye, aniga waxaan isticmaalaa Google Documents. so haddii aan Google Slideska taabto, wuxuu ii furayaa page cusub, kadibna wuxuu dhahayaa copy dheh. so haddii aan make copy dhaho, copy wuu iga sameynayaa kan, wuxuuna igu furayaa gmail-kayga. intaa wixii ka dambeeya aniga iska lahan doonaa ku sameyn karaa. marka sidee hadda arkayso slide-kii uu noo furay, Google Documents noogu furay, akoonkaygu ku fura. hadda haddii aan halkaa taabto, Abdiraxmaan Casiir akoonkiisu ku furan yahay. waxaan sameyn karaa inaan edit gareeyo oo aan waxaan doono ku qoro. so waxaa sameyn kartaa inaad duplicate tiraahdo waxyaabaha qaar. haddaan doono kanaan duplicate dhigi karaa, haddaan doonay laba xab inaan ka dhigo waan masixi karaa. waxaan arki karaa graphics-kii. okay, waxaa kaloo doonaya inaan si meesha u dambeysana waxay ku siinayaan icons la isticmaalayo. so haddii u baahato icon inaad geliso qayb ka mid ah slide-kaaga, xaggan baad ka qaadan kartaa. so for example waxaad doonaysaa iconka Facebook oo kale inaad isticmaashid, waxaad dhigi kartaa Control C, koobiyeyso, kadibna meesha ku isticmaalayso tag. waxaad dhigi kartaa, waxaad soo gelisaa title-kan oo kale waxaad tirahaa, ama sorry sidii isku daga kan calaamadda un bedel. Facebook aan soo qaadanay, tan aan masixi karnaa, kadibna FB aan keeni karnaa, noo weynay. okay, hadda meeshaan soo dhigno blue color-ka is yara qurux badnayn, laakiin adiga concept-iga waa sidaa. waxaad isticmaali kartaa iconska. wuxuu kaloo ku siinayaa inuu colorskana kuu sheego isticmaalay. colors wuxuu ku siinayaa colors ku isticmaalay hexacode-kooda.
wuxuu ku siinayaa graphics-kii iyo waxyaabahaas oo dhan. So waxaa weeye template aad iyo aad u dhammaystiran oo aad isticmaali karto. So haddaad doonaysid inaad samayso presentations aad iyo aad u qurux badan, soo booqo Slides.go, kadibna ka dooro nooca aad doonaysid, ama la download garayso la deg oo ku isticmaal PowerPoint, ama haddaa Google Slides isticmaasho sidoo kalena just copy dheh. waxaan filaa muuqaalkan ka faa'iidaysatay. ilaahay inaad share garayso muuqaalkan si uu asxaabtaada oo dhan u gaaro. kusoo mention garay qof presentationkiisa aad iyo aad u foolxun yahay oo waxyaaba maalayacni soo diyaaray si uga faa'iidaysto haddii aad garanayso. haddii aad adigu u baahan tahay laftirkaagana mar walba isticmaali kartaa, waad sii fikirsan kartaa videoga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.